kusoo dhawaada sheekadeeni saddexda maalaawow kaca oo xambaarsan murti iyo xikmad. nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo reer miyi ah ayaa waxa uu doontay gabar. ninka waxa uu xoolo ka haystay 100 halaad iyo baarqab iyo faras. intii uu haystay ayaa waxa weydiistay gabadhii aabaheed waxba kama u san reebin, gabadhii uu ka bixiyay. sidaas ayay gabadhii isaga isku soo raaceen. dabcan miyiga qofka haduusan xoolo haysan waxa uu ka mid noqdaa ugaarsatada oo ugaarta ayuu ku nool yahay oo markaasi aysan beere ka dhaweyn meesha uu joogo. muddo yar kadib waxa uu soo martiyay reerkii ugaarsatada ahaa gabadhii aabaheed. gabadhii aabaheed ay aragtay oo guriga ugu soo martiyay ama aqal Soomaaliga miyiga ay ka deganeed. kadibna waxa isku dayday ama isweydiisay wixii aabaheed ay ku soo riyeen lahayd. waxa ay sugtay odageedii waxaana yimid odageedii oo faramaran oo aan wax ugaar ah soo helin. kadib dariska u dhawaa oo nin ugaarsatada ka mid ahaa ayay u tagtay. waxa ay weydiisay jeex sagaara ah oo u warnaa ninka u yaalay inuu amaahiyo. ninkii maadaama uu shaydaanka iska badan yahay gabadhii waxa uu weydiiyey in hal shardi uu ku bixin karo jeex sagaarada, wuxuuna ahaa in iyadu xaggiisa ay soo marto habeen qura ama waxa loo yaqaano gogol dhaaf. dabcan ninkaasi sharwadaha waxa gabadhii meel ay u leexato ma haynin, waa ay ka ogolaatay, laakiin shardi kale ay ku xirtay oo ahaa in uu isagana wax kaga casheeyo jeex sagaarada marka ay soo bislayso caawa. kadib ninkii guriga ayuu yimid, ninkeedii iyo aabaheed iyo ninka dariska la ahaa sidee u sheekaysanayeen si ogaal ah oo ku talagal ah ayaa gabadhii waxay u soo daahisay cashadii jeexa sagaarada ahayd. raggii siday u sheekaysanayeen waa la gamay oo waqtiga ayaa ku dheeraaday. markay hurdeen ayay cashadii soo qaaday. intay keentay waxay tiri saddexda maalaawow kaca. kadib raggii ayaa isfiirfiiriyey, maxaa ula jeedaa saddexda maalaawa la yiri. markaasa waxay tiri maalaawaha koobaad waa ninka aniga iqaba oo wixii xoolo uu haystay intuu aniga iga bixiyey annagoo ceyr ah aan isdaba galnay oo ku biirnay kooxda ugaarsatada ee xoolo la-aanta ah. kadib maalaawaha labaadna waa aabahay oo wixii ninka uu haystay intuu ka qaatay oo aniga iga bixiyey aan waxba u celinin oon isweydiinin gabadhaada siday u noolaan doontaa. kan saddexaadna waa ninka doonaya gabar 100 halaad laga bixiyey in jeex sagaara ah uu kula seexdo. dabcan waxaan filayaa xikmadda sheekada iyo waliba qisada inaad wax badan ka faa'iidaysateen. la wadaag saaxiibadaada iyo ehelkaaga ee sheer garee.